Cabdisalaan Yuusuf Guleyd waxa uu noqday taliye ku-xigeenkii hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya intii u dhaxaysay sanadkii 2013 ilaa 2017. Waxa uu si gaar ah u qaabilsanaa qaybta howlgallada. Taliye ku-xigeenkii hore ee hay-adda Cabdisalaan Yuusuf Guleyd ayaa May 21 sanadkii 2017 ku dhawaaqay in iskiisa oo isaga casilay xilka, balse waxaa jira macluumaad sheegaya in xilli hore laga qaaday xilka kadib markii lagu helay dayac shaqo oo uu sameeyay. xaaladda amniga waddanka ka jirta waxay ka xun tahay xaaladda amniga ka jirtay 5 sano ka hor waddanka. Haddaba aan dib ugu noqono siday ahayd xaaladda amniga waddanka ee uu sheegay Cabdisalaan 5 sano ka hor oo uu isaga qudhiisa inoo sharxayo. intaan ugu joogay dhaqan la yiraahdo anniversary sanad guuradii hay'adda nabad sugidda wax la yiraahdo la sameeyay. de waa ceeb waana qalad in hay'adda nabad sugiddu ay sanad guura samaysato ay soo bandhigto askarteedii iyo saraakiisheedii. yaa soo abaabulay munaasabadda lagu fashiliyay xogaha sirta ee dawladda yaase ka soo qayb galay mar kale. Cabdisalaan oo qayb ka ahaa ha inoo sharxo. waxaa la keenay bajaajiyo halkaa la soo safay. de waxaan isku sheegay dawladda Soomaaliya waxay ka fahamka nabad sugidda ka aaminsan tahay. waxaa la keenay gaari gacano caasiyaal baa la soo safay waa la soo display gareeyay. markaas idaacadihii baa la keenay saraakiishii madaxweynihii xasan sheekh baa lawa ama madaxweynaha cabdikariin guuleeda wasiiraha waa la isugu waco safar la soo geliyo waa kuwa meeshan beel weyn oo hay'adda gudaheeda. haddaba maxaa dhacay kadib markii la soo bandhigay xogtii muhiimka ahayd ee sirdoonka Soomaaliya oo uu Cabdisalaan qayb ka ahaa maamulkaasi? markaas ali waxaanu diyaarinay gaadiidkaas mujeedin calan buu hoos ku leeyahay mujeeda waa la garanaya waa la sii sheegay waxa lagu garanayaa calaamadaas ay leeyahay waa lagu qabtay taksigaas anaga iskale waxaan la rabaa in suuqa loo diro qof shacab uu qaato oo de al-shabaabki soo tiftifo Soomaalida garan waxa iska daran markii la gaaray maadaama ay faanka jecel yihiin madaxda Soomaalidu markii la gaaray baa waxa la yiri hebel amal marina la dhiibaya shabaab uu eber ka dhigay cadawga ayuu laayay. de wiilkan amal marinta ku siinay national TV-ga hortiisa hooyadiis jaamacadna wuu dhigtaa wasaaradda caafimaadkan uu ka shaqeeyaa ama waxbarasho maba ogaba inuu nabad sugid yahay. amniga Soomaaliya ee 5 sano ka hor sheegayay Cabdisalaan sidoo ahaa waa kan isaga oo ka jawaabaya. waxaan maleeyaa dad badan waxay dhahaan maxaa keenay inay sidaan wax u dhacaan. marka midaalan ku soo qaadanaya wixii dayacan way dayacmaan marka xoolaha hadaan lala jirin baylax bay noqdaan. sidee ayuu ahaa xaaladda isku milanka al-shabaab iyo madaxda dawladda? Cabdisalaan ha inoo sharxo. anigoo taliye amniga oo taliye baan xog helnay waxaana loo keenay liis nimanka shabaabka nala shaqeynay waxay noo keeneen shabaab waxay dheen liiskan oo dawladda kamid ah way nala shaqeeyaan ogaada waa dad magacii iyo qabiilkii iyo meesha ka shaqeeyay iyo mas'uuliyadii baa ku qoran. haddaba kadib maxaa dhacay? Cabdisalaan oo mar kale haddana inoo sharxaya waa kan. baarlamaankii oo shir haysta baa lagu yiri adiga mas'uulka ah baarlamaanku adiga mas'uulka ah oo amniga baarlamaanka mas'uulka markaas ka horna baarlamaan dhowr jeer la galay marka waa break fiican la kala qaatay oo la isku iimaanay. waxaan ku qasbanaa marka inaan meel kasta farta geliyo si aan u sugo amaankaas baarlamaanku inuu qabsoomo maalintaas. ciidamada la isiiyay waxa la yiraahdaa mas'uulka ah meelaha ugu muhiimsan ee baarlamaanka laga soo galay liiskii nala siiyay nin kamid ah ku jiro taliye ka ah baaba taliye ka ah liiska meel kamid ganjeeladii geedadka baarlamaanka laga soo galo liiskii nala siiyay nin kamid ah ku jiro. waxaan la hadlay ninkii taliyaha waxaan ku wareed anigu ma sheegin sida waxyana ku noon iga bedel ciidankan iga bedel maxaa dhacay iga bedelan ku dhawa amar iga bedel waaya de galabtii baan ku uriyo shirku bari buu dhacaya habeenkii baan ku soo laabtay wali waa jooga wasiirkii baan wacay amniga waxaan ku iri ciidankaas iga bedel wasiirkuna xogta uu hayay iga bedel ciidankaas meesha jooga waayo ugu yiri subaxii baan way joogaa ilaa markii daan uu imid anoo de madax uma ahayn uu imadan ku yiraahdo listen adiga iyo ciidankaadu baxa waa shaqada wala in ka joojiyay ilaa aan howl ilaa 4 saacadood soo socoto xaafidina aada oo ciidan kale meesha keensan. Cabdisalaan sidee ayuu u bogaadiyay ciidamada naftooda u horaya shacabka Soomaaliyeed?
maalin dhow aadan uga xanuunsaday markaan arkay wiilka askariga ahay naftiisa siday naftiisii inuu bixiyo diyaarka u ahay qorogiisii Kalashnikovka ahay ama akayga dhabarka gashtay booshkii ku xiran yahay oon lahayn madaxiisa waxba uma saarna wuxuu isku difaaco uma saarna xabadkiisa waxa bad celiya uma saarna Soomaalida garan bastoolad baa ka dhex baxaysa xarig aan hataa gunud lahayn buu ku koray sarta darbigeedu koray soo culayska sida caatahood ogta inta miisaankiisu la egi maxaa intaas laba arrimood baa aawada waxa wada geesinimo iyo damiir oo aaminsan inuu mas'uul ka yahay dadka gudaha ku jira soo badbaadiyo